بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وصحبه أجمعين. سورة المسد مكية وآياتها 5. سورة وحا مقعيدا ليلهدا سورة المسد وانا مكي، وسورة اللهب نوال ليلهدا، وسورة تبض نوال ليلهدا. وقد تحدثت عن هلاك أبي لهب عدو الله ورسوله الذي كان شديد العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يترك شغله ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ليفسد عليه دعوة ويسد الناس عن الإيمان به. سورة المسد بالليلهده. waxaan ka soo baxnay suuradihii cajiibka ahaa ayaan casharkeennii hore ku soo qaadannay. saddexdii suuradood oo nabigeennu calayhi salaatu wasalaam habeenkii markuu jiifanayo labada gacmood inta sidaa isku feer dhigo oo middiiba 3 mar akhrin jiray, gacmihiisana ku tufi jiray, jidhkiisoo dhanna oo marmari jiray, sida xadiidka saxiixulbukhaari iyo muslim oo caaisha ay warinayso oo caddaynayo nabiga calayhi salaatu wasalaam suuradihii oo akhrisan jiray oo sixirka iyo sharta iyo shaydaanka iyo jinnigaba ka akhrisan jiray iyo xaasidka iyo kaahin oo dhanba waan soo marnay. waana inaan suuradahaas hoos ka xariiqnaa oo aan mar walba akhrinnaa, adkaar ahaan aan xataa u akhrisannaa. waa suurado dhammaantood cajiib ah oo khayr aad u fara badan iyo culuum fara badan ka hadlahaya. suuradda suuratunaas la yidhaahdo waa sidoo kale inaan xusuusnannaa suuradaha sabab nusuulka ay ku soo degoodeen. suurad walba markaad marayso xugunka ku jira iyo taariikhda iyo masaa'isha ka baxaysa waa inaannu xifdinnaa. suuradahan oo labada ah oo la yidhaah suuratunaas iyo suuratulfalaq maxay ku soo degoodeen? sababtay ku soo degoodeen waxay ahayd waa soo qaadannay sixirkii nabiga calayhi salaatu wasalaam. sixir furkii nabigay ku soo degoodeen. yaa sixray rasuulka? yahuuddii baa sixirtay. ninka sixirka bilaabay magaciisa maxaa la odhan jiray? lubayd ibnul acsam alyahuudiyi min yahuudi bani surayq. yahuudda reer banu surayq buu ka mid ahay. ninkaas iyo gabdhihiisii iyo dadkii ugu kaalmeeyey ayaa rasuulka sixir u aaseen calayhi salaatu wasalaam. malaa'ig baa u timid, daawo furkiisii bay u sheegeen. qur-aankan baa lagu soo dejiyey labadaas suuradood. wow akhristay nabigu waana ka daawoobay calayhi salaatu wasalaam. marka aayadahaas iyo suuradahaas waa inaannu akhrisannaa. ikhlaaskana waa suurad baraka badan. asxaabta nabigu way aad bay u jeclaayeen. mar ay safar u baxeen niman ilaalo meel loo diray, ninkii saxaabiga ahay oo u ahay hoggaamiyaha u ahay ra'iiska ayaa u ahay asxaabta ra'iiska u ahay amiirka u ahaa. mar walba oo tujinaayo suuraddan ayuu ku soo dhammay jiray. ragcada dambe ee ragcada bacdalfaatixa ayuu akhri jiray suuraddan. markaasay dhaheen maxaad suuraddan ugu laalaabataa? nabigay arrintii u soo sheegeen calayhi salaatu wasalaam. nabiguna wuxuu yidhi su'aala muxuu suuraddan u akhrinayaa? wuxuu yidhi ninkii ilaahay baan jeclahay. ilaahay bay ka sheekaydaa suuraddan ikhlaaska la yidhaahdo. sidaasaan u akhriyaa. haddaba ogow baa la yidhi ilaaha aad jeceshahay adigana inuu ku jecel yahay. suurad tawxiid ka hadlayda waaye gebi ahaantood. ilaahay sifa xun in lagu tilmaamo waa mustaxiil. gaaladu waxay ku tilmaamayaanoo dhan buu ka hufan yahay. ilaahay wax xun oo kasta ayuu ka hufan yahay. inuu makhluuqa u ekaado oo adugu makaan baad leedahay, meel baad joogtaa. ilaahay in la yidhaahdo meel buu joogaa waa ka nastahan yahay. makhluuq oo dhan buu ilaahay ka sarreeyaa. sarraynta ilaahayna waa macnawiya xisi, wax la taabanayo oo loo tegayo ma ahan. makaan lagu tilmaami karaana ma jiro. qolo raafida ah oo bidcooyinkii hore ka mida iyo bidcooyin kaleeto mujasimada iyo aqabeen jahmiyada iyo ilaahay in makaan loo tilmaamo oo la yidhaahdo makaankiisu waa carshiga korkiisa iyo waxaa lagu tilmaamo. ilaahay marka subxaanahu wa tacaalaa suuraddaasna caqaa'idkiibay ka hadlaysa. saddexdaas suuradoodna waa magangalyaalkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam. marka uu jirrado ayuu nabigu akhrisan jiray.
markii qof uu jiran yahow ku akhri jiray mar kastou jiifanayo ayuu akhrisan jiray markuu subaxii soo kaca ayuu akhrin jiray markuu galabkii gaaro ayuu akhrin jiray markuu salaadaha ka baxana waa akhrin jiray annagana waxaana laka rabaa inaan jidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam aan qaadno oo aan ka faa'iidaysanno oo aan caqaa'idkeenna hagaajinno oo aan aadaabteenna hagaajinno oo aan aadaabtii rasuulka ku dadaalno calayhi salaatu wasalaam waxaad maqlaysaa gabdhihii ayagoo macduura inay dugsiyadii dhigayaan qaarkood baa waxay ku leeyihiin anugu jaamaca qur-aanka ma taabto laakiin qur-aankii baan gabdhihii u meeriyaa oo dugsigii baan dhigayaa gabadha xaydka qabto looma oggola inay dugsi dhigto oo ay waxa weeye waxyaabaha qabato inta macduurka ay tahay looma oggola oo xaydka ay qabto ee qur-aankii way dhegaysan kartaa oo dhegta waa ka maqli kartaa laakiin inay tidhaa anigiibaa akhrinhaya jaamicii ma taabanaya waa akhrina looma oggola weeye waxyaabo badan baa jira cilmiga ayaan waxaasoo dhan ku ogaan doonnaa waa in diinta si fiican loogu dadaalaa walaalayaal casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa suuradda la yidhaha suuratulmasad ayuu caawa casharkeennu ka bilaabanayaa suuraddan abiilahab bay ka hadashaa bal aan dhammaanteen si fiican u wada fiirinno bismillaahi araxmaani araxiim tabbat waxaa halaagsamay yadaa abiilahabin abiilahab labadiisa gacmood ayaa halaagsameen wa tabba wou halaagsamay macnaha midda hore habaar baa laga dhigaa ducaa'u calayhi baa laga dhigaa tabbad allow ay halaagsanto yaddaa abiilahabin wa tabba waaba halaagsamay tan dambana waa ikhbaari markaas maa aqnaa kama deeqin canhu xaggiisa maaluhu xoolihiisii waxaba kama tarin wamaa kasaba wixii ou kasbaday oo owlaaddiisa looga jeedana waxba uma tarin sayaslaa wuxuu gelayaa abiilahab naaran naar ayuu gelhayaa naartaasoo daata lahabin holac iyo olol u saaxiiba wamra'atuhu islaantiisuna way gelee imra'adaasoo xamaalatulxadabi xaaba qaadidda badneed fii jiidihaa luqunteeda waxaa ahaanaya xablun xariggaasoo min masadin liif ka samaysan bismillaahi araxmaani araxiim tabbad waxaa halaagsantay yaddaa abiilahabin wa tabba wowna halaagsamay ama tabbad allow ay halaagsanto yaddaa abiilahabin abiilahab labadiisa gacmood wa tabba waaba halaagsameene wowba halaagsamay gebe ahaantiis be abiilahab maa aqnaa wax uma deeqin maa aqnaa kama tarin ama kama deeqin canhu xaggiisa maaluhu xoolihiisii uu soo shaqaystay waxba kama deeqin waxba uma tarin naar kama badbaadin iyo cadaabtii ilaahay maalkii uu ku soo nafbeelay waxba waa u qaban waaye wamaa kasaba wixii uu kasbaday oo owlaaddiisa looga jeedo li'anna alwalada min kasbi alwaalid maxaa yeelay ilmuhu kasabkaagay ka mid yihiin ilmihiina wax uma tarin oo cadaabtii ilaahay ma kasamata bixinuu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala sayaslaa wuxuu gelayaa abulahab sayaslaa wuxuu gelahayaa naaran naar ayuu gelahayaa naartaasoo daata lahabin holac iyo olol u saaxiiba naar holcaysa oo ololaysa ayuu dhexda ka fadhiisanhayaa allaha naga badbaadiyo wamra'atuhu islaantiisuna naar bay gelee imra'adaasoo xamaalata alxadabi xaaba qaadidda badneed fii jiidihaa luqunteeda waxaa ahaanhaya xablun xariggaasoo min masadin liif ka samaysan ayuu leeyahy ilaahay subxaanahu wa tacaala suuraddaanu waxay ka hadashaa walaalayaal nin la yidhaahdo waxa weeye abulahab ayay ka sheekaydaa abulahab bal aan axwaashiisa iyo taariikhdiisa ku dul istaagno abulahab maxaad ka xasuusan tahay arrintiis sababtay suuraddaanu ku soo degoota waxay ahayd saxaabiga la yidhaha cabdullaahi ibnu cabbaas wuxuu yidhi markii ay soo degootay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam dacwada markii koowaad oo rasuul laga dhigay calayhi salaatu wasalaam waxa weeye si sir ah ayuu ku bilaabay markii horeeto waxa weeye si tartiib ah oo aan jahran ahayn ayuu ummadda diinta ilaa 3 sano muddo la-eg
oo ugu yeerayay kabacdi waxaa la yidhi u deg ahalkaaga xaqana la jahar baa la yidhi fasdac bimaa tu'mar la jahar waxaa lagu farayo kor u qaad weliba u dig baa la yidhi haddana wa andir cashiirataka alaqrabiin qaraabada kuu sii dhow ka bilaaw gurigaagaa laga bilaaba diinta walaalayaal gurigaagaa laga bilaaba sawjadaada kitaabka loo akhriyaa gabdhahaaga ayaa casharka loo meeriyaa waxa weeye ahalkaaga casharkaad barato hooyada aabbaha naftooda ayaa dersiga loo akhriyaa maxaa yeele diinta haddii aadan gudbinayn asxaabtu dersiga waa qaadan jireen waxyiga nabiga ku soo degooday dhegaysanayeen oo nabigu u sheegaya calayhi salaatu wasalaam guryahooda ayay ula laabanayeen annaga waxaad arkaysaa maanta in cilmigii la baranayo laakiin guryaheennii ay ka qadsan yihiin guryihii inay abaar ka yihiin diintii barashadoodii ayaad dareemaysaa walaalayaal waa inaan taas ka gudubnaa muslimiinay oo aan guryaheenna ka dhignaa guryihii waxa weeye guryo shabbaha guryihii asxaabta ma noqon karaan laakiin waa inaan isku ekaysiinna oon jeclaana oo ruux walbaa masalada uu barto iyo kitaabka culamaa'udiinku u akhriyaan waa inuu gurigiisa ula soo laabtaa masalada uu dhegaysto waa inuu ahalkiisa ula soo laabtaa waa inaan sidaa diinta lagu fidiyaa dersiga ruuxa akhrisanaya ruuxa dhegaysanaya ruuxa fidinaya kulligood dacwadii rasuulka iyo diintii nabiga laga soo gaaray ayay faafinayaan diintu waxay ku faaftaa waa barasho waa atacallum wa tacliim bay ku faaftaa waa in aduguna aad soo barato ummaddana sii barto sidaasayba diintu ku faaftaa nabiga calayhi salaatu wasalaam xirfadda asxaabtu kale waxay ahayd atacallum wa tacliim inay nabiga cilmiga ka sii baranayaan ummaddana ay sii barayaan oo sii gudbinayaan waa inaan annaguna dhaqankaas qaadannaa axbaabii fillaah muslimiinay waa inaan annaguna sidaasoo kale u dadaalnaa loo baahan yahy ilaahay marka waxa weeye markii uu amarkaas nabiga ku soo dejiyey calayhi salaatu wasalaam oo la yidhi u dig ahaladaada u dig markii la yidhi nabigeennu calayhi salaatu wasalaam sacida annabiyu sala allahu calayhi wasalama cala asafaa buurta la yidhaha assafaa oo markii sacyiga la samaynaayo labada buurood midda laga bilaabo sacyiga ayuu nabigu korkeeda istaagay wanaadaa wuxuuna u yeedhay qoomkiisii oo dhan uu iskugu yeedhay yaa sabaaxaah asagoo dhahaya wuxuu ku yidhi yaa banii fihrin yaa banii cadiyin libuduunin min qurayshin xata ijtamacuu kulligood buu iskugu yeedhay ilaa ay isku yimaadaan waa isku yimid markii dambe ayagii dhan baa isku yimaaday markay isku yimaadeen waxaa la yidhi maalinkaas sida taariikhuhu caddaynayaan ruuxii inuu ka soo qayb galo wicitaanka nabiga ay suurtagal u noqon weydo calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo dirsanayay fartiin iyo qof ka socota oo arrinta u soo ogaata oo u soo indha-indhayda oo hadha uu war keenta ayuu soo dirsanayay qurayshtii oo dhan baa isku timid nabiga adeerkiis baa ka mid ahay dadkii yimid abulahab waa isku yimaadeen nabigu calayhi salaatu wasalaam waxay ku dhaheen maa waraa'aka yaa muxamed waa nasuukaana yeertay waa isku nimide waana nawacdaye kulli isku imaadaadna tiri isku nimide maxaa kaa dambeeya cilladda iyo wax aad aragtood noogu yeerayday maxay ahayd markaasuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ara'aytum low akhbartukum anna khaylan bilwaadi turiidu an tuqiira calaykum akuntum musadiqiya ayuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ka warrama haddaan idin odhan lahaay waadigaa gadaalkiisa niman farda wata oo weerar ah oo inay idin baabi'iyaan doonahayaa soo socda haddaan idin odhan lahaay been baad sheegay may dhihi lahaydeen markaasay dheheen baa la yidhi maya may rumaysa lahaydeen buu nabigu yidhi markaas bay dheheen nacam waa ku rumaysanahayn beenlow kuguma naqaan qaaluu nacam maa jarrabnaa calayka kadiban qad weligay annagu been kuguma annaan arag muxammedul amiin baanba kuu naqaan beenlowba laguguma yaqaanba nabigu markaasuu yidhi calayhi salaatu wasalaam fa innii nadiirun lakum bayna yaday cadaabin shadiid anugu waxaan ahay mid idin digaya cadaab daran ayaan idinkaga soo digaya haddaad col iyo cadow adduunyada xaggeeda oo yimaado oo weerar ah iga rumaysa lahaydeen midda aakhire iga rumaysta xagga aakhiro rasuul idin digayo ilaahay soo diray baana cadaabta aakhiraan idinkaga digaya ilaahay ka cabsada
asnaamta kahara waxa weeye sanamka wax idiin tari maayo ilaahay caabuda tawxiidsada ilaahay qira rasuulkiisana qira qiyaamada aad ku intifaacaysaan sidaas baa loo yiraahday markaasay waxay ku jawaabeen abulahab baa hadlay baa la yiri dadkii kale oon hadlin abulahab baa halkan soo istaagay markaasuu yiri abulahab tabban laka ya muhammad saa'ira alyawm alihada jamactana maanta inta ka laaban gelinka halaag ha kugu dhacee ma waxaad noogu yeeraysay ilaahay ka cabsada ma waxaad noogu yeeraysay sanamka kahara ma waxaad noogu yeeraysay laa ilaaha ila allahu dhaha miyaad noogu yeeraysay halaag ha kugu dhacee waxaas oo kale maba layskugu yeeree ma waxaas baad noogu yeerayday fiiriya ikhwaani waxa weeye kibirkiisa abulahab markuu hadalkaas yidhi ayay soo degootay nabi maxamed oo ku yidhi calayhi salaatu wasalaam tabban lak hadalkii ou yidhi oo waxa weeye barasiis hadalkiisii oo nuuci ah oon meel ka bedelnayn ayaa asagii lagu amaalmariyey tabbad yadaa abilahab ayaa layidhi watabba nabi maxamedow halaag kugu dhac yidhi markaasaa asagii waxaa loogu jawaabay abulahab labadiisa gacmood ayaa halaag ku dhacay oo halaagsameen baa la yidhi abulahab cadowga nabiga calayhi salaatu wasalaam laf dhuun gashow ku noqday cadowgii rasuulka u ahaa calayhi salaatu wasalaam wuxuu wariyey nin la yidhaha daariq almuxaaribi wuxuu yidhi baynamaa ana bisuuqi dalmajaas suuqa dalmajaas anoo maalin jooga waa suuq maka ku yaalla idan ana bishaabin xadiifi sinni waxaan arkabuu yidhi wiil dhallinyaro ah oo da'diisu yar tahay yaquulu odhanaya ayuha annaas quuluu laa ilaaha ila allah tuflixuu wardadow laa ilaaha ila allahu dhaha waad liibaanaysaan tawxiidku waa liibaan walaalayaal diintu waa liibaan qur-aanku waa liibaan salaaddu waa liibaan soonku waa liibaan sadaqadu waa liibaan salliga rasuulku waa liibaan jacaylka nabigu waa liibaan ilaahay dartii oo laysku xidhiiriyo oo muslimiinta loo sharfo nabadgelinta muslimiinta la nabadgeliyo kulligood waxaasoo dhan waa liibaan waxaan arka buu yidhi ninkaasi wiil yar oo dhahaya dadka war laa ilaaha ila allahu ku dhawaaqa waad liibaanaysaan waa nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi wiilkaas sidaas dhahaya wa idan rajulun khalfahu yarmiihi qad admaa saaqayhi wa curquubayhi wayaquulu yaa ayuha annaas inahu kadaabun falaa tusadiquuh faqultu man haada faqaaluu huwa muxamed yascamu annahu nabiyun wa haadaa cammuhu abulahab yascamu annahu kadaab wuxuu yidhi kitaabka qurdubiga la yidha ayaa qisada hadda aan akhrayna soo qaadaya qurdubiga naftiisay ku qoranta wuxuu yidhi gadaalkiisa waxaa taagan buu yidhi rasuulka markuu dadka xaqa ugu yeerayo nin baa taagan buu yidhi waa abulahab ninkaas markaasuu dhagax la dhacaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu nabigu dadka yidhaahdo tawxiidsada abulahabna dhagax ayuu nabiga la dhacaya calayhi salaatu wasalaam dhagaxii baa nabiga soo ugu waday dhiig baa ka yimid rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhiiggii oo dhan shanshooyinkii iyo waxa weeye ee curquubkii dhiig baa ka yimid curquubka waxaa la yidhaha mu'akhirulqadam ayaa carabiga lagu yidhaahdaa ciribtii meesha gomadda ugu dambayda cirbihii weeye aa dhiig ka yimid markaasuu abulahab ka daba leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam yaa ayuha annaas innahu kadaabun falaa tusadiquuh waa beenlow ee warkiisa yaan la rumayn oon la qaadan ayuu ka daba leeyahay sidaasuu ka daba lahay waxaan idhi buu yidhi ninka la yidhaha daariqulmuxaaribi nin la yidhaahdo yow yahay ninkaani oo dadka dhahaya tawxiidsada markaasay dhaheen huwa muxamed yazcamu annahu nabi gaaladiyaa dhahaya waa nabi moxamed oo nabi aan ahayn ummadda dhahaya midkaan dhagaxa la dhacayaana waa adeerkiis yazcamu annahu kadaab wuxuu ka daba leeyahay waa beenlooba iska ilaaliya abulahab cadowgii rasuulka u ahaa calayhi salaatu wasalaam markii nabiga rasuul laga dhigay ninkii ugu horreeyey oo gaalada dhan ugu soko maray oo nabiga cadow ku noqday oo nabiga candhuuf indhaha uga tufi jiray oo dhagaxa la dhici jiray oo waa beenlow dhihi jiray oo annagoo naga leexday annagaa waalidkiisii ah waa canu qaldan ka daba dhihi jiray ayuu ahay laakiin wuxuu ka dhaxlay inuu galo naar uusan weligii dambe ka soo laabanaynin
abulahab walaalayaal maxaa la yidhaha magaciis waxaa la yidhaha magaciisa abulahab cabdulcusa ibnu cabdulmudalib nabiga adeeradiisu ka mid yahay calayhi salaatu wasalaam dadka qaar waxaad arkaya iyagoo isku qaldaya abujahal iyo abulahab abulahab iyo abujahal nabiga aabbihii lama dhalan gaaladii waxa weeye quraysheed oo madaxda quraysheed ka mid ah ayuu ahaay laakiin nabiga aabbihii lama dhalan gaaladii cadowga ku aheeduu ka mid ahay laakiin abulahabka hadda aan ka sheekaynayno waa nabiga adeerkii oo laxmi ah aabbihiisu la dhashay waa adeerkii laxmi ah laakiin naarta jahannabo ayuu mutaystay abulahab gaalkaani kunyadiisa waxaa la yidhaha abulahab magaciisana cabdulcusa ibnu cabdulmudalib ayaa la yidhaahdaa wuxuu qabay abulahab islaam buu qabay iyaduna cadow bay ku ahayd nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhaha islaamta ou qabay alcawra ummu jamiil ayaa la yidhaha ummu jamiil waxay la dhalatay abu sufyaan ibnu xarbi ay walaashiis ahayd abu sufyaan ibnu xarbi nin la yidhaahdo ay walaashiis ahayd abulahab iyo xaaskiisu alcawra ummu jamiil labadaasu cadowgii nabigay ahaayeen calayhi salaatu wasalaam nabigay aad u cadaawaysan jireen abulahab markii uu rasuulka ku yidhi tabban laka markii uu yidhi yaa muxamed saa'ira alyowm alihaadaa jamactanaa waxaa soo degootay tabbad yadaa abilahabin wa tabba markaasuu yidhi aniga halaagga uu muxamed sheegaayo waxaan iskaga badbaadinayaa maalkayga iyo ilmahayga naarta uu sheegaa labadaas aan iskaga badbaadinayo iskaga furanaya xoolo badanna waa leeyahay ilmana waa leeyahay wiilal ilaa 3 xaba oo awlaadahu lahay wiilal ah kuwaas baa naarta wuxuu yidhi anigu hadhow aan isku furanaya markaasaa waxaa soo degootay maa aqnaa canhu maaluhu wamaa kasaba xoolihiisa iyo wuxuu kasbaday oo ilmihiisa ahi labaduba waxba ku tari maayaan naar holcayduu geli doonaa islaantiisuna way gelee naartaasi weligood ku jirayaan baa la yidhi ilmo iyo waxa weye wax badbaadi karaana ma jiraan islaanta ou qabo nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo abubakar sidiiq rasuulka waxaan rabaa cadow bay ku ahayd iyo asxaabtiisaba markii ay maqashay aayadaha ku soo degooday abulahab oo ninkeeda ah ay waxay tidhi maxamed waaba soo dilayaaba marka maadaama uu qur-aanka uu nagu caayay oo aniga igu tilmaamay inaan xaaba qaadid badanahay waaba soo dilaa bay tiri way soo baxda dhagxaan bay soo qaadataa la yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo abubakar sidiiq oo kacbada agteeda fafadhiya ay soo aaday ayadoo dhagxaan gacanta ku wadata oo rabta inay nabiga calayhi salaatu wasalaam ku dhifato markay rasuulka u soo dhowdahay ilaahay baa ka indhasaabay waa u jeedi weyse abubakar kaliya bay u jeeddaa nabigiina uma jeedo calayhi salaatu wasalaam way yaabtay hadda waa kii kuu muuqanayee xaggee aada bay tiri markaasi waxay tidhi yaa abaabakarin balaqanii anna saaxibaka yahjuunii waxa ay soo gaaray tiri saaxiibkaagu inuu nacaynaayo nabigay ka wadaa calayhi salaatu wasalaam oo uu xamaalatulxadab igu tilmaamay fa wallaahi low wajadtuhu la darabtuhu bihaada alxajari faahu haddaan maanta heli lahay bay tidhi dhagaxaan baan afka uga dhifan lahay markaasay geeraar bilowdaa la yidhi gabay iyo geeraar bay bilowday taquulu ayadoo odhanayda mudammaman casaynaa wa amrahu abaynaa wa diinahu qalaynaa ayay tiri baa la yidhi mudammaman mid la ceebeeyaan casaynaa ku caasiyownay wa amrahu arrintiisoo dhanna abaynaa waannu diidnay wa diinahu diintiisana qalaynaa waan u cadhoonnay tidhi saasay ku tidhi nabigay ka waddaa calayhi salaatu wasalaam ma nabi maxamedaa mudammam ah ma diintiisaa wax la diida ah ayadaa musiiba ku dhacday uma insarafat waana iska dhaqaajidaa la yidhi nabiga uma jeedo calayhi salaatu wasalaam abubakaru sidiiq baa wuxuu yidhi yaa rasuula allah amaa taraahaa ra'adka nabiga ilaahayow miyaadan u jeedin inay ku aragtay miyaadan u malaynayn baan rabaa inay ku aragtay anigaba way ii jeeddaa adiguna waad ila fadhidaa anna waa kuu jeedaahe say noogu jeedi weydi rasuulku markaasuu yidhi calayhi salaatu wasalaam
maan ra'adnii buu yidhi iima arkin buu yidhi iima jeedayn laqad akhada allaahu basarahaa cannii buu yidhi indhaheeda ilaah baa iga qabtay ilaahay baa iga indhasaabay iima jeedin buu yidhi fiiri sida nabiga loo dhowray calayhi salaatu wasalaam ta'ammul ku sameey waxa weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam waa cabdun ikhtaarahu allaahu wa xafidahu waa addoon ilaahay doortay ilaahay baa xifdinaya haddana xifdinaya awalna xifdinayay sharaftiisa adduunka kuwa jooga waxa weeye oo bildamada iyo musawirada iyo waxyaabaha xun ka samaynaya oo nabiga waxa weeye suura beddelaya oo nabiga magaciisa iyo ammaantiisa iyo sharaftiisa iyo jiriddiisa wax u geysanaya waxay ka qaadayaan ma jiraan walaalayaal ilaahay baa jeclaaday ilaahay baa doortay ilaahay baa kalaamkiisa u soo dhiibay asaga iyo inta raacdana cisi iyo sharafa u sugnaaday nabi moxamed jidkiisa iyo jidka ilaahay qofka diidana dulli iyo halaag baa u sugnaaday iyo musiibo uusan ka soo kaba doonin waxay ahaayeen qurayshtu nabiga inay caynayaan calayhi salaatu wasalaam waxay dhihi jireen mudammaman iyagoo macnaha waxa weeye muxammedan dhihi maayaan mudammaman casaynaa bay leeyihiin mid la ceebeeyaan ku caasiyownay nabiguna hadda calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhihi jiray ma waadnan la yaabayn sow cajiib ma aha oodnan la cajabayn sida ilaahay kayfa sarafa allaahu can adaa qurayshin sida ilaahay kayfa sarafa allaahu cannii adaa quraysh sida ilaahay quraysh ceebteeda iyo xumaanteeda iiga badbaadiyey yasubuuna wayahjuuna mudammaman wa ana muxamed ayuu nabigu dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam waxay mar walba caynayaan nin mudammam ah anugu nabi moxamed aan ahay mudammam maba ihiba mudammam waa qof xun aniga marka ma ihi buu nabigu dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam marka abulahab gaalka la yidhaahdo sidaas ayuu ahay haddii aad tidhaahdo wuxuu yidhi imaamulkhaasin maxaa loogu kunyooday ilaa kunyadu waa tashriif iyo takriimi ah waxaa looga jawaabay waa marka koobaade kunyadan buu mashhuur ku ahaa oo isimkiisa aad looguma oqoon waa midda labaade isimkiisa cabdulcuzaa baa la yidhaah marka kunyadii baa loo leexiyey maxaa yeelay waxa weeye kunyadiisii ayaa loo tiiriya baa layidhi waa limaa fiihi min ashirki li'ana alcusaa sanamun falam tudif alcubuudiyatu ilaa sanamin maxaa yeelay haddii cabdulcuzaa la yidhahdo cusaha sharaf ee sanam ay caabudaan bay u yaqiineen ilaahay baana addoon loo noqdaa marka magaca xun oo wax lagu dhawaaqo aan gelin waa laga wareejiya baa la yidhi midda saddexaad waxaa abulahab magaciisan ee kunyadiisa loogu yeedhay ahlu naarkuu ka mid yahay naarta ayuu u leexan doonaa u dhammaan doonaa markaasaa naartiiba waxa weeye aabba looga dhigay abulahabin holaca naareed aabbaheed baa loo baxshay ama abiilahabin islaanta ou qabo waxaa la odhan jiray ummu jamiil waa soo sheegnay cadowgii rasuulkay ahayd calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah dhaqamada ay gabadhaasu samay jidhay abulahab ou qabo xaabo iyo qoryo ayay soo qaadaa jidka ayay nabiga u dhoobtaa calayhi salaatu wasalaam waddada ayay u dhigtaa baa la yidhi ayadoo qoryahaas iyo qodxahaas iyo waxa weeye dhagaxyada waxyaabaha ay waddo habeenkii dhulkay jidkay nabiga ugu daadisaa si habeenkii markuu soco tego oo ugu kufo oy u mudmudaan dhibkaas nabigay ka shaqaynaysa calayhi salaatu wasalaam waxay kaloo ahayd baa la yidhi dadkay isku diri jidhay dulmiley oo waxa weeye ummadda isku dirta oo sidaas ficillada xun samayday bay ahayd oo ummadda cadaawo iyo balaayo dhex dhigta ummu jamiil baa la yidhaah alcawraa baa loo yaqaanaa waxay aakhirkeedii ku dhammaatay iyadoo qoryo xambaarsan iyo xaabo iyo qodxo iyo waxa weeye waxyaaba nuuca oo nabiga ay ku dhibi rabto meel bay inta daashay ku nasan maagtay way kuftay baa li dhinac bay u dhacday xariggii ay ku garaarsaneed oo qoorteeda ku xirnaay ku ceegsamay waanay soo fariisan weyday sidaas bay ku baktiday baa layidhi ahlu naar waaye qiyaamada waxaa la soo saari doonaa iyadoo xariggeeda qoorteeda xarig oo geedka la yidhaha masadku waa liif waa xablun min masadka waa xablun min liif ow khawsin baa la yidhi ayuu ka samaysan yahay ama juluudda oo ibilku ka samaysan yahayna waa la yidhaahdaa iyadoo xarig naareed qoorta ugu xiran yahay oo sidaas loo cadaabayo qiyaamada la keenaya sidaas bay ay ku dhimatay ayaa la yidhaahdaa jibriil baa riday oo baashiisa ku dhiftay dhinac bay u dhacdana waa la sheegaa
si kastoo tiraaba halaagaas bay ku dhimatay abulahabkii naftiisu arrintiisu maxay ku dhammaatay goormuuse abulahab geeriyooday abulahab sidiisa wuxuu lahaay 3 wiil buu lahaay nabiga markii la soo diray oo rasuul laga dhigay calayhi salaatu wasalaam oo nabigu ummaddii uu diinta ugu yeeray oo cadowgii rasuulka uu ahaaye nabiga oo wuxuu ummadda ugu yeeray oo ka xumaaday ayuu ku yiri wiilashiis 3 wiil buu lahaay 3 wiil mid waxaa la yiraahdaa cutba midna waxaa la yiraahdaa mactab midna waxaa la yiraahdaa cutayba 3daas magac bay kala leeyihiin 3dii wiil oo dhalay laba horta way soo muslimeen maalinkii maka la furanayay ee laba soo muslimeen oo labada soo muslimtay waa labadee waxaa soo muslimeen wiilashii oo dhalay laba kamida ayaa la yiri wiilashiisa laba kamida oo waa cutba iyo mactab labadaas waaba soo muslimeenba dagaalkii xunayn iyo daa'if iyana way xaadireen laakiin cutayba ma soo muslimin gabdhihii nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu waxa weeye uu qabay ninka la yiraahdo cutayba wuxuu qabay gabadhii rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo la dhihi jiray kalthum ruqayana waxaa qabay ninka wiilkii abilahab oo la odhan jiray cutba marka cutba iyo cutayba labadii gabdhood oo rasuulka oo sayid cuthmaan ka bacdi uu guursan doono ay awal qabi jireen labadaas gabdhood bay qabi jireen ka bacdi sayid cali markay iyagu fureen oo nabigu mid siiyey markay ka dhimatana tii kale wadana ku xiray way ka dhimatay iyaduna dhinuurayn baa la yiraahdaa dhinuurayn waxa loogu baxshay sayid cuthmaan waa labada gabdhood oo rasuulka oo nuurka ahaayeen oo asagu u saaxiib ahaayo guursaday taariikhdana ma jiro laba gabdhood oo nabi dhalay nin guursaday oo sayid cuthmaan bin affan aan ahayn maba jiraba cuthmaan bin affan kaliyaha soo maray baa la yiri taariikhdoo dhanba marka labadaas gabdhood 3 wiil oo abulahab laba kamida gabdhihii rasuulka ay qabeen calayhi salaatu wasalaam markii rasuul laga dhigay oo abulahab cadaawanimo la soo istaagay oo wiilashiisii gabdhaha nabiga qaba wuxuu ku yiri ra'si wa ra'sukuma haraamun in lam tudalliqaa ibnatay muhammad oo yiri anigiya adinku ma isi salaamayno haddaadna labada gabdhood oo nabi muhammad furin salaan nagama dhaxayda buu yiri labadii gabdhood bay fureen marka way fureen markii cutba oo doonay ninkii cutba ahay labadii gabdhood waa fureen horta ninkii cutayba la dhihi jiray marka wuxuu damcay inuu wadanka shaam aado oo uu raaco waxa weeye aabihiis abulahab markaasuu yiri anigu muhammad baan u tagayaa dhibaataana u geysanayaa waa u yimid nabigu u yimid calayhi salaatu wasalaam waa cutaybo waa midka balaayadu ku dhici doontan soo muslimin nabigu inta u yimid wuxuu yiri yaa muhammad inni kaafirun bin-najmi idaa hawaa wa billadii danaa fatadalla aniga waa suuratu najmi uu ka sheekaynaya waa ku gaaloobay quraanka aad kugu soo dagoodoo dhan ثم تفل أمام النبي صلى الله عليه وسلم وطلق ابنته كلثوم نبيغو عندوف كسو توري ويلكي أبو لهب أولا ديه جري عطيبة gabadhiisii nabigu qabana waa furay kalthum ahayd kuwa kale nabiga candhuuf iyo waxba kuma tuurin gabadhii oo qabay cutba waa furay oo ruqaya candhuufna nabiga kuma tuurin ka bacdina waa soo muslimi doonaa asaga mactaba laakiin midkaanu ficilkaas xun buu sameeyay sidii Abu Lahab oo kale u dhaqmay abihiis oo kale nabiga markuu wiilkan sidaan sameeyay oo ku caroodaa la yiri waa ku xanaaqay waana habaara la yiri nabigu kaleey salaatu wasalaam wuxuu ku yiri rasuulku kaleey salaatu wasalaam allahumma sallid alayhi kalban min kilabik ilaahayow eeyahaaga kamida oo cuna ilaahu ku dir buu yiri kan musiiba ilaahu ku soo dir faftarasahu al-asad libaax baa cunay baa la yiri wiilkii marka cutba ahaa oo gaalnimada ku dhintay waxaan rabaa cutaybe oo Abu Lahab oo nabiga candhuufta ku soo tuuray oo gabadhiisa furay Kalthuma halkaas ku dambayday waa libaaxa cunay duqdi oo qabay oo Jamiil ahayd oo Abu Lahab oo qabana
qoryihii nabiga ay u soo qaadaysay iyo xaabadii jidka ay u dhigaysay la kuftay waa baktiday labadii wiil oo kaloo kala ahay mactab iyo cutbana way soo muslimeen oo ka bacdi khayraaba ilaahay u qadaray qoyskii reer abulahab maxaa ka haray marka walaalayaal waxaa ka haray abulahabkii naftiisiina cudurka daacuunkaaba u dhintay cudurka la yidhaha daacuunka ayuu u dhintay wahalaka abulahabin bacda waqcati badrin b7 layaalin bimaradi macadin kadaacuun وبقي 3 أيام حتى انطن فلما خافوا العار حفروا له حفرة ودفعوه إليها بعود حتى وقع فيها ثم قذفوه بالحجارة حتى واروه فكان الأمر كما أخبر به القرآن سيصلى نارا ذات لهب قال كي أبو لهب أهاي قرمو جيريودي وقتك تاريخ دو جيريودي ووقتك وحو جيريودي أبو لهب dagaalkii beder oo dhacay sanadkii labaad hijrada nabiga calayhi salaatu wasalaam bil ramadaan 7 habeen ka dambeeyay dagaalkii beder 7 habeen ka bacdi oo geeriyooday abu lahab dagaalkii beder kama qayb gelin asagu kama uusan qayb gelin oo dad gaaladii aaday oo dagaal ka qayb gashay kamid ma ahayn markii lagu yiri waa la muslimiintii baa guuleysteen 7 nin baa nala ka dilay 7 baa la qifaashay raggeeni waa la xarxariirsaday aad u murugooda la yiri ka bacdina cudur baa ku dhacay waxa weeye oo sida daacuunka asaga dhan googoynaya waa googo'ay yusamma al-adas cudur la yiraahdo ku dhacay waa googo'ay wuu geeriyooday baa la yiri asagii dhamaay 3 maalmood jirkiisa dhan wada baray asuu googo'ay qurun oo noqday marka 3 maalmood aameedkiisu banaanka yeelay baa la yiri ninkii kibir ka badnaay ilaa habaarkii nabi maxamed ku dhacay calayhi salaatu wasalaam 3 maalmood ayuu meedkiisu banaanka yeelay waa uray markii dambe gaaladii oo ka dhashay waxay isdhaheen baa la yiri ama laydin ku caaya habaar qabaha oo laydin dhaha war maxaad u aasi weydeen ninkoodii bay aasan waayeen ama laydin dhaha god bay u qodeen goday u qodeen baa la yiri farahoodii ka dhawranayaan qoryo ay intasaa u geliyeen geesaha uga soo geliyeen ay ku dildilsheen godkii xunka ahay markuu godkii galayna dhagxaan bay ay la dhaceen baa la yiri iyo ciid waa qariyeen waa ku astureen naartii marka ilaahay ugu tala galay oo nabi maxamed quraanka loogu bishaareeyo rasuulka quraanka lagu soo dejiyay oo sheegay ayuu ku dhamaaday abu lahab cudurkaas buu u dhintay islaantiisii waan sheegnay caruurtiisiina 3 bay ahaayeene 2 waa soo muslimeen cutba iyo mactab cutaybana libaax baa cunay oo nabi maxamed baa habaaray oo candhuuf ku tufay marka nabiga markuu habaaray cudurkaasi qoyskii reer abu lahab marka walaalayaal waa dayasho iyo tusaalo waxay u yihiin qolo walba oo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam cadow ku ah oo rasuulka ilaahay aflagaadayda oo gaalada ah oo ama munaafiqiinta ah oo mubtadiciina oo jidka nabiga ka qalloocata oo rasuulka xurmadiisa garan weyda calayhi salaatu wasalaam jidkaas ayaa waxa weeye ayay tusaale u ah waxaan arkaynaa hadda maanta aan aragnaa dad Soomaali ah oo gaaloobay oo diinta islaamka ka baxay oo wax soo qoraya oo oranaya nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam muxamed carab oo ahay diintiisana ma aaminsanin dad dhahaya ayaa hadda qoraaladoodii aragna walaalayaal oo qoraalo noo soo qorayo marka daraasaadka aan bixinayno ayay waxay soo qorayaan qoraalay soo gudbinayaan casharada intaan akhrinayno markaasay leeyihiin diinta aad akhrinayso sheekh yahow adiga iyo wixii ku raacsanba ood leedahay nabi maxamed hala raaco waan diidnabay dad noo soo qorayaan waa dad Soomaali ah oo diinta ka baxay baa la yiri war dadka dibadaha jooga walaalayaal musiiba ku dhacday ma aanan ogaa jirin sidaan oo kale Soomaali sidaan u gaaloobay oo nuucaan noqday oo nabi maxamed waa carab dhahaya oo diin ma haysan dhahaya oo waxa soo qoraya inay jiraan marka Soomaalida islaamka waxa weeye hal la isdaba qabto qatar bay ku sugan yihiin walaalayaal hal la isdaba qabto ilmihii yararka ah maanta waxa weeye maskaxdooda ayaa la rabaa in la bedelo oo aan waxba aqoon oo dalkan waxa weeye gaalada iyo ku dhaxdhashay ayaa maanta la beleynaya
ayaga weeye waxa qaribaada iyo masaa'ibta la kulmayaaho war waalidkii iyo waxa weeye ahalkiiyo isdaba qabta oo awlaadiina rasuulka hadda bara calayhi salaatu wasalaam abulahab iyo abujahal iyo dadkii acdaada rasuulka ahay meeshay ku dambeeyeen waad u jeedin gaar ahaan qoyskii reer abulahab oo nabi maxamed cadowga ku ahay oo dacwadiisa cadowga ku ahay oo xaqa cadowga ku ahay oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam dacaayaday jiray oo candhuufku tufi jiray deriska rasuulka deris bay la ahaayeen markaasi qashinka iyo wax xun oo kastay ku soo tuuraan baa la yidhi marka waxa weeye meeshii u dambayday ilaahay baa nooga sheekeeyey naar bay mutaysteen cadaawadii nabi maxamed ee naar ku mutaysteen calayhi salaatu wasalaam ha lays ilaaliyo oo soomaalida waxa weeye khatarta badan gelaysa oo diintoodii iibsatay ha laysku dayo in inta hartay la badbaadiyo ayagana waxa weeye ilaahay loo bariyo in ilaahay diinta ku soo celiyo bismi illaahi araxmaani araxiim tabbad yadaa abiilahabin abiilahab labadiisa gacmood alla ay halaagsameen waxaa la yidhaahdaa min tacbiiri aljus'i wa iraadati alkulli baa la yidhaahdaa asaga dhan baa hadda loo jeedaa halaagga wa tabba wowba halaagsamay abulahab halaag baaba ku dhacay maa aqnaa kama deeqin canhu xaggiis maaluhu xoolihiisii ou soo shaqaystay waxba kuma tirin wamaa kasaba wixii ou kasbadayo owlaaddii iyo ilmihii aana naar kama badbaadin sayaslaa wuxuu gelayaa naaran naartaasoo daata lahabin holac iyo olol u saaxiib naar holcayda oo ololaysa ayuu abulahab gelayaa wamra'atuhu islaanta ou qabaana ayaduna waa sidoo kaleetoo naar bay gelaysaa imra'adaasoo xamaalatul xadabi waa la akhriyaa xamaalatul xadabi maxaa yeelay imra'atuhu faacilka sayaslaa bay ku cadfan tahay xamaalatu qirada ah haddii la akhriyana waxaa laga nactiyeynayaa imra'adan wamra'atuhuna way gelee imra'adaasoo xamaalatul xadabi xaaba qaadidda badneed xamaalata haddii la akhriyana mafcuul weeyo ficilkii lagu kor dhiga lahay baa la soo qadarayaa acnii waxaan u jeedaa ow adummu waxaan ceebaynayaa xamaalata alxadabi midda xaaba qaadidda badneed oo nabi moxamed cadowgiisa noqotay calayhi salaatu wasalaam fii jiidihaa luqunteeda waxaa ahaaday xablun xariggaasoo min masadin liif ka samaysan ayaa luqunteeda ahaaday kaanad lahaa qilaadatun faaqira min jawharin fa qaalad markaasi waxay tidhi oo waxaa la yidhaha masadka waa min liifin qad futila fatlan shadiid baa la yidhi aad baa loo soo ahay waxaa kaloo imaamulmujaahid ou yidhi waa dawqun min xadiid waa bir qoorta ugu xidhan oo xarag camal aad u malayso oo naareed qiyaamada ayadoo wadatay keeni doontaa baa la yidhi ay la iman doontaa waxay lahayd kuul aad u cajiibahoo jawhar ah markaasay maalin tidhi wallaati walcusaa la anfaqtuhaa fii cadaawati moxamedan ku bixinaya ilaahay wuxuu ugu beddelay xariggan si kastoo tiraaba qoyskii reer abulahab taariikhdoodii halkaas ayaan uga baxnay suuraddan baa looga hadlay cadowgii ugu horreeyoo nabi moxamed ka hor yimaad bay ahaayeen oo rasuulka ahalkiisiina ah cadowna ku ah maxaa yeelay qofka ahalka kuuhu waa qofka ahludiinka ah oo caqiidada iyo diinta iyo islaamka kugu jecel ahal ku ah ee qofka aan diinta lahaynu ahal kuuma ahan ahalkeennu waa dadka muslimiinta ah waan wanaagsan casharkeenna caawa intaas ayaan ku soo koobaynaa wallaahu aclam bisawaab wallaahu waliyu tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu